xildhibaan Axmed Maxamed Afyare oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa qiyaamo qaran ku tilmaamay kulankii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaanu sheegay xildhibaanku in kulankaasi dhiigbax ku ahaa qadiyada go'aansashada Soomaaliland waa sida uu hadalka u yiri waxaanu xildhibaanku ku baaqay in xorriyadooda loo soo celiyo dadka u dhashay Soomaaliland ee u xidhan qadiyada la xidhiidha arrimaha Soomaaliya de farmaajo iyo xamarba dad baa wax xidhan waa aragtay waa ku riyootay cildoon baa kamida inantii baa kamida leeyahay wad ku riyootay de la kulan kura xaraan baan u aragnaa anagu wati lagu ololeynayay lahaa dad baa la kulmay xamar bay doonayaan waa qalad waa qiyaamo qaran baan u aragnaa anagu kama duwanada qofka imika la kulmay kuwa xidhan lagu xukumay kama duwanada waxay ku kala duwan yihiin lagu xukumay xamar baad ku riyootay ama aragtay ama ka timi iyo ka imika u tagay walaal muwaadin Soomaaliyeed bal wax ku kala duwan yahay uu sheeg midna uu fasaxay midna uu jeelka ugu jiro soo labada xamar iyo Farmaajo ma wuxuu baan u arkaa uu qiyaamo qaran ninka aldo wuxuu salaamay Farmaajo markii la dooranayay waan u taageeray markaa ninka la shiray iyo ninka salaamay waa isku mid u banaamisanahay wala xidhay madaxweyne waxa ka codsanayna mar haddaad la kulantay adigi soo daa wadiga lagu eegay jiray xisbiyada mucaaridka xamar doonayay wadiga adigu madaxweyne Farmaajo u tagay bal dadka Farmaajo ku xidhay waxaan ka codsanay inaad soo dayso oo isku mid noo deen noqotaan hadii meeshii la fasaxay xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay hadal raali gelin ah oo ka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo ku aadanaa gaboodfalkii dowladda militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ay u geysatay shacabka Soomaaliland taasi oo xildhibaanku ku tilmaamay mid jaban hadalkaasi kulankii ka dambeeyay wuxuu u yahay aynu isu taraarixno isu qaboojino وهالشيء صعد إننا إذا كورهين برلمان كورهين أو أصحاب كورهين مركا ده كل هالجلنت هو وعنت هالجلنت لكن هالجلنت ده واحد نقطة قرن بين النهاي إسنا قرن بالمثلا مركا هو حكى هريا إنه إن عقصوا يا سومال مركا سومال لان مورن تكلم شبهدي هو إسنا حكى بحين بيقول حاليا أنا ولا هبه أبولش بيقول jabada hubaysanay dhulkooda ay ku soo dhacsanayeen ma ay ku duuleen xamar nin dhulkiisii la yiraahdo xaal ka bixiyay maadkiisana taasaba gif labaada ugu dambeyn xildhibaan su'aashan ku diina waxa tahay safarka madaxweynaha ee dalka Itoobiya ee la yiri wax ku kulmeen madaxweyne Farmaajo wali xukuumadda Soomaaliland si official ah uga hadal waxyaabihii ay ka wada hadleen maxaa fariin ah ee aad halkan ka diraysan waxaan leenahay qaranka sidii uu ilaashado loo ilaashado Farmaajo waa mamnuuc xamarna waa mamnuuc intaynu ku heshiinaynadii oo xeer ka dhiganayno haddii la fasaxayna dadka jeelasha ku jiray xamar ku xidhlaha la soo daayo ilaa waa isku xaqo oo isku laba muwaadin oo reer Soomaaliland madaxweynaha iyo cildoon waa laba muwaadin cildoonna wuxuu ku xidhay xamar baad tagtay muusana de Farmaajo u tagay marka waa isku xuquuq waxa leeyahay warama xamar iyo Farmaajo fasaxa noqdaan oo hal soo dayda dadku xidhan ama labaduba xaraan ha noqdaan xeer hal mariyo xeer hal mariyo xeerka inooga yaalay hal mariyo waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco